السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal marka ugu horeysa waxaan salaan gaar ah u soo diraya dhammaan dadka halkaan isku yimid caawa kana yimid agagaarka gobolka Minnesota iyo magaalada Minneapolis iyo St. Paul magaalooyinka waaweynka ee Minnesota oo runtii waqtigoodii halkaan isku yimid si ay uga qayb qaataan halyeegii ku shahiiday last week General Mohammed Noor Galaal. walaalayaal saa la socotaan for the last couple of months waxaan maqlaynay geeriyo badan oo xanuun badan oo ku timid jaaliyadaha Soomaaliyeed ee North America iyo dhammaan kuwa Yurub. runtii saa la socotaan Hotel Afrique waxaa ku dhintay oo ku shahiiday General Mohammed Noor Galaal oo runtii lagu yiqiinay inuu ahay macallin Soomaaliyeed ama maskaxdii ugu dambeysay ee dadka Soomaaliyeed ay helaan. midda xiga waxa halkaas ku dhintay dad kale oo badan ay ayaguna ku dhintay. sidoo kale haddaad la socotaan degmada Hodan waxaa ku dhintay asaguna nin dhalinyaro ah oo runtii Cabdixakiin Dagajoon oo asaguna runtii ahay dhalinyarada ka shaqeynaysa ammaanka gobolka Banaadir. sidaa la socotaan waxaa maanta oo kale ayagana ku dhintay ilaa dad gaaraya 10 qofood gobolka Galgaduud gaar ahaan magaalada Ceeldheer ee u jirta 30 kilomitir magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. dhammaan waxa halkaa ku dhintay in asaguna runtii gobolka laga yiqiinay Qoojayare Allah u naxariistee. waxaan leeyahay dhammaantood oo Ilaahay ugu baryaynaa inuu Ilaahay jannadii ka waraabiyo eelkii iyo qaraabadii iyo saaxiibadii ay ka tageenna samir iyo iimaan inuu Ilaahay ka siiyo annagana gadaashooda Ilaahay inuu khayr nooga tago. saad la socotaan walaalayaal ma dhinte waa Ilaahay. waxa way qof walba ama geeridu waa jid la wada marayo qof walbana uu marayo inkastoo la kala horeeyo laakiin geeridu waa kala xanuun badan tahay. qofka dhintaahi sida General Mohammed Noor Galaal sida la socotaan ciidankii Soomaaliya runtii xilligii 1960 ilaa iyo 1979 wuxuu ka ahay qayb runtii aad u muhiim ah xubin ah oo runtii ka qayb qaatay in magaca Soomaaliyeed uu ka gaaro East Africa ama Afrikada bari magac aad u heer sarreeyay lagu tilmaamay ciidankii Soomaaliya inuu ahay ciidankii uu wanaagsanaa geeska Afrika. taasna waxaa sababay General Mohammed Noor Galaal Allah u naxariistee. wuxuu ahay runtii libaax ka soo jeeda geeska Afrika runtiina lagu xasuusto magaca ciidanka Soomaaliya. General Galaal wuxuu ka shaqeynayay for the last 15 years in ciidanka Soomaaliya ay ku laabtaan sharaftii looga yiqiinay gobolka wadanka Afrika gaar ahaan East Africa. generaalku wuxuu sidoo kale ku lug lahay in gobolada dhexe ay helaan ammaan iyo sharaf. runtii taariikhdiisa halkaan kuma soo koobi karo laakiin waxaan leeyahay Ilaahay ka baryaa inuu jannadii Firdawsa ka waraabiyo General Mohammed Noor Galaal. inkastoo waqtigu yarahay waxaan mar labaad aan hambaliyo bogoodin u dirayaa dhammaan jaaliyadaha halkaan isku yimid sida jaaliyada Galmudug jaaliyada Puntland jaaliyada Jubbaland ururka ONLF Southwest iyo mataqaanaa jaaliyada Somaliland oo runtii dhammaantood halkaan isku yimid siday u dhaxaan oo Ilaahay uga baryaan General Mohammed Noor Galaal Ilaahay jannadii ka waraabiyo. waana mahadsantihiin. thank you. haddii ujeedada ugu weyn oo meesha maanta isugu nimid waa laba shay labadaas oo kale ah inaan mar maartay u barur deeqno ama u tacsiyadeyno generaalkii Soomaaliyeed odagii Soomaaliyeed waayo araggii Soomaaliyeed wiigii horeeto ku shahiiday Hotel Afrique General Mohammed Noor Galaal iyo inaan maartay runtii fariin nabadeed u dirno dadka walaalaha ah ee ku dagaalamaya gobolada dhexe khaasatan dhulkan Xanan Buure iyo Qalanqalle iyo dadka bariyahan dagaalada soo noqday runtii inaan maartay fariin u dirno labadaas ujeedo ayaan runtii maanta meesha sugu nimid
marka hore waxaan rabaa runtii inaan tacsiyadeeyo ehelkii Generaal Maxamed Nuur Galaal oo runtii ahay shakhsi ummadda Soomaaliyeed ku weyn. Generaal Maxamed Nuur Galaal runtii wuxuu ahay icon ama maaragtay calaamad shakhsiyadeed, ma uusan ahayn nin qabiil ka soo jeeda, ma uusan ahayn nin maaragtay sheegan shakhsiyan meel kaligiis taagan, laakiin wuxuu ahay Soomaaliya saraakiishii ugu darajada sareysay, Soomaaliya saraakiishii ugu magaca dheereed. taariikhdiisa runtii meel walba ayay taallaa, qofkii maaragtay interest ku ah meel walba ayaa laga helayaa, laakiin wuxuu ahaa nin maaragtay runtii dagaaladii Soomaaliya galeen oo 64 67 77 intaba maaragtay sheeg xuman muuqda ka ahaa. wuxuu ahaa raggii ciidamada Soomaaliya wax ka soo dhisay. marka xaqiiqatan nin maaragtay qaaliya ayaa Soomaaliya ka tagay. dhammaanteen aan wada duceyno Ilaahay ha u naxariisto, Ilaahay jannadii firdawsa geeyo, ehelkiisana Ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo. waxaan rabaa inaan ku daro kaliya run ahaantii Generaal Maxamed Nuur Galaal shakhsiga noocaasa wuxuu u baahan yahay dawladda markaas jirta inuu ka helo munaasabka uu ku leeyahay. marka waxaan rabaa runtii inaan maaragtay sheeg aan dhaliil u diro dawladda Soomaaliya oo aan runtii munaasabkii Generaal Maxamed Nuur Galaal oo lahay aan marin. sababta waxa weeye generaal maaragtay ciidanka Soomaaliya ugu darajo sareeyay waxay ahayd inay munaasabad maaragtay sheeg inta hadda la mariyay ka badan in maaragtay sheegeen la mariyo. laakiin waxaan moodaa Soomaaliya 30 sano oo la soo dhaafay burburka ay gashay waxay sababtay dawladdii inay gacanta u gasho dadaan ba ahli u ahayn. mararka qaarkood dadaan dawlad aqoonin, dadaan generaal waxba ka aqoonin, dadaan gaashaandhig waxba ka aqoonin ayay maaragtay runtii dawladdii gacanta u gashay. marka waa masiibada Soomaaliya ku habsatay ayaa maaragtay runtii generaalka munaasibkiisiina ku habsatay. intaas ayaan maaragtay runtii aan rabaa midda dawladdana uga baxo. dhaliil midaas lamida waxaan rabaa runtii inaan u diro dawlad goboleedka Galmudug ee uu hogaamiyo Axmed Qorqor. runtii Generaal Galaal wuxuu ka mid ahaa dadkii dawladdan wax ka dhisay, dadkii nabadeynta wax ka keenay, dadkii Axmed Qorqor maaragtay in la soo dhiso ka shaqeeyay, kaalin mugla ayuu ku lahaa. marka ayaga naftirkoodu waxaad moodaa eedda inay dhinac ku leeyihiin, inay ka habsaameen bosishka ay ku lahaayeen aaska Generaal Maxamed Nuur Galaal. marka hadalkayga intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. dhammaanteen aan wada duceyno generaal Soomaaliyeed oo ah Generaal Maxamed Nuur Galaal oo naga wada tagay. Ilaahay waxaan uga baryaynaa maaragtay jannada firdawso, ehelkana samir iyo iimaan in Ilaahay ka siiyo. Assalaamu calaykum. bismillaahi raxmaani raxiim. innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. walaalayaal, waxaan aad iyo aad marka ugu horeysa mahad u celinayaa dhammaan dhallinyaradii caaway meesha tan iyo xafladda tan baroordiiqda soo asaastay isku soo dubariday. mahad baan u celinayaa gaar ahaaneed ujeedada maanta aan meesha isugu nimid cali shidaa sheegay waxa weeye number 1 inaan u tacsiyeyno annaguna isku tacsiyeyno maadaama uu naga dhintay Generaal Maxamed Nuur Galaal oo ahaa oday Soomaaliyeed, macallin ciidanka Soomaaliyeed ah, macallin ku takhasusay arrimaha siyaasadda ee ciidanka, security-ga ciidanka, waxyaabo badan iyo buugaag badan uu qoray ayuu ka tegay. inkastoo burburkii waxyaabihii aan u malaynayo qaarkood inay meesha ka baxeen, wuxuu kaloo caan ku ahaa ninkii dagaalkii 77 aad iyo aad cadowga Itoobiya qayb weyn ka qaatay ee ummadda Soomaaliyeed xoreeyay ayuu ahaa. Maxamed Nuur Galaal oday Soomaaliyeed oo siyaasiyana wuu ahaa, nin scholar ah oo ku soo takhasusay shahaadooyin badanna ku haystay xagga militariga ayuu ahaa. sida Cali Shida u sheegay, waxaan aad iyo aad u dhaliilayaa dawladda Soomaaliyeed in aysan qaybtii ku habooneed aysan ka qaadan duugtii
iyo janaasadii caadiga ahayd dadka madaxda lagu tukan jiray airportka inaan la marsiin waa nasiib darro waana waxyaabaha waddanka Soomaaliyeed maanta dhibaatada haysata ayay ka mid tahay. Maxamed Nuur Galaal wuxuu ahaa waddani Soomaaliyeed oo waddanka u soo halgamay. haddaad fiirisiin hadda markuu hadda dhintay waxaanu u jeednaa al-shabaab gobolladii dhexe inay maanta soo weerarayso. Maxamed Nuur Galaal wuxuu ahaa rag ninkii tababaray ciidamada al-sunna wal jamaaca ninkii tababaray buu ahaa ninkii cadowgii ummadda Soomaaliyeed al-shabaab dagaalka kula jiray buu ahaa. dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta caruurteena iyo marasteena difaacaysa asaga tababaray. waxaan aad iyo aad ilaahay uga baryaynaa jannadii raxmay inuu ka waraabiyo samir iyo iimaanna uu ka siiyo eheladiisii annagana ilaahay samir inuu naga siiyo maadaama uu ahaa odaygeeni maadaama uu ahaa oday Soomaaliyeed maadaama uu noo ahaa oday gaar ah annagana waxaan leeyahay jannadii raxmo Allah generaalka ka sawaabiyo taariikhda ayaa xusaysa jiilka soo socda ayaa xusi doona ma uunan helin munaasibkii uu ku lahaa dawladda Soomaaliyeed laakiin annaga u hayna ilaahay jannadii raxmaha ka waraabiyo. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت قف أدمنين مجره وهكذا إلهي إذا جاء أجلها ولا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون ساعة. أجش هديت بعد وقت جدي منا كهر منا يسوع منا كذب لعيس قف أدمنين مجره مركا ولا عليه جنرال كوهري يكوجوري هوتيل كي أفريق إلهي وحن أقبلينا قبورته إنه إلهي واسعيه قبورته الروض المريا لجنة إلهي إنه قدره جنة الفردوس إنه كورابيه في الذي سإنه سيه نحريستي سإنه سيه أنقونا أضم إلهي أكتي سوح كله ودوله كدعائي وسبب لك أجيبي وإلهي كأكبر إلهي إنه قدره ساسا إلهي كبرينا وحويه بقول يلا بعتنها بين مركو بدني هويدي كتير أما علوش هويدي أيا الله قري وقت جو لمن لها ما أنا كذب لك ما أنا كذب لها يوم ما أنا كهر لها وقت يساق حنات كعنك حقدرن بعد الشيء نوحها آدي آد أقي بدن هذا الوكو بكري وهو سبن نكلي ديرك لو تفتو كملها أنا وحن كملها إذا ما يجي لسعود عن كملها نكرتلي وكارتلي وأقويهن وننع والبابا كوانا يكسبوها مركا إلى أكتيسا أيوك هلا يا وناق أوسمي يعذب الصدق ونعبا أنك أنا وحن لا هي يا أنتي قرابة صبر يا إيمان الله كسيو هراي أشياء رجع ولا عليه يقول رجع مناسب كأكلها دولة الصومالية كمهرين ما كهرين إلا أسوق ما باهنا لكن أيها شرف أطهي إني ولا الكود وأقويهنا جنرال عظام إنتاس إلى عظام إلى أساس الصومالي اللي إلى وقتها هذا كغيب قري إني مأموسان أيها شرف أهد وهكذا دجال الذي أهل جاهاي وهذا صدق السنة على إن كان كغيب قريب بوها ولقى كما غيب قريب وذات كأدي أبو عيجري شيء والأوجي هاي وقالوا أسوق كملها مجع عرب اللون بحشة مجع هذا ما هي يعني وكسو هرتي لواحد سعودات دي حمان السعودة مركا إلهي نحريستي شناك ورافشو كعنك حقدرن بعد الشيء إلهي أياك ولا حساب تمهيا أنت أصلا وبحها هيا ولا لها قبل الله لها كدر هيا وحن لا هاي ظلم يا حاران يا وحن إلهي خالك أهين أياد والدين باش قاسة أنو هبرجدير شريعة إسلامك إن يكله حتى أنو قبه ويا شريعة إسلامك هذه يكله حنين وقفك يقفدر حق لقوا فيه سيدا ليس كمدلين هذه أجاس ليهين يا هذه عقل ليهين يا هذه ليهين أقويهن شريعة سي أشياء كتار أقوى نغمان dadkaas waa kala bari lahaa qof walba hadii laga oofiyo xaq ilaahay ku wujuubiyay qof walba qof kala waxa la yiraahdaa dadku qalbi cabsada ma leh kor cabsada u leeyahay waxaan leeyahay dilka istilaysan ahlul naarnimo weeye
naartaad ku galaysaan adduunyo beel weeye aakhiro beel weeye joojiyaan in leeyahay dagaalka ka socda xananbuuro iyo midkii la mid waa xaaraan ilaahay agtiisana waa ka xaaraan islaamka agtiisana waa ka xaaraan qof islaam la dilo kulun qof islaam la dilo waa xaaraan in la dilaa من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها وغضب الله ولعنه وعد لهم عذابا أليما أي أنت إلهي اسكو رأسي قف مؤمن وإسلام الدين marka hadday islaamku tihiin run ah dadka dili ma dishin waayo dagaaladii sokeeye yaa darajo gaaray yaa ku dalacay yaa sharaf ku gaaray ilaa inuu ka shalaayo maahay miyaan ogtihiin waa maya intaas unbaa isku raacday marka waxaan leeyahay oon cod gaaban iyo cod dheer ku leeyahay wardiinta islaamka ha loo laabto yaan la sheeganina ha lagu dhaqmo yaan la sheeganina ha la fuliyo sida ay tahay qof walba xukunka uu leeyahay lagu fulo والله قف إن أدير كآخرة كاعلن هي إنه سجل نار هذا أهي لسيد ظلم أهي لسيد وأدون أهل النار باتهاي أسقون أهل النار وين إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون مقعي وحال دايباق عبد الله علي وحنا هاي جالية الصومالية إرهار من الصورة وهلكن دجنا مدعات ودير كدير مددي أن دجنا مقالدي أن كل شيء حمر حدنتي ذكو أسنيت تاسو أن كإمي مدة تضبي لبعتين سنة لجوجو أنا عرور probably not عرور but teenager or pre-teens لقى قصو صاري حوجة وحن لنا هيدتك هوتيل أفريقيا لقولاي أو وهريو أذيركن مجاهد ميجر جنرال محمد نور قلال الله ونحرسته وأن إذين دمغانينا مش أن جوجنو إذا كفكت لكن قلبي ذينا إذا لا جوجا مقدشة is bleeding دبكينونا دبيا وعن الله كبريا سبحانه وتعالى إنه دبك إذا كذل قاضي waxaan u mahadcelinayaa in alla intii galabta halkan timi iyadoo aan ognahay inay winter tahay inay qabow tahay in hawlo kale iska jiraan oo waqtigooda qaaliga u soo horay inay u duceeyaan adeerkeen mujaahid major general maxamed nuur galaal waxaa jira qofka islaamka markuu nool yahay xaq badan oo kugu leeyahay qofka islaamka markuu dhintane saddex xaq buu kugu leeyahay oo ah mid ka mid ah inaad janaasadiisa tagto ku tukato u duceyso maadaama aan ka fognahay oo aanan la tukan karin halkan aan duco uga marinayna hawada waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu jannatul firdaws geeyo eheladii uu ka tagayna samir iyo iimaan uu ka siiyo samirku ما أهان قفك إنه سمراء مركي وحكو دعان بلوين كدب مالما كدب وحن سمرك وحلو باهان هاي مركي كوكو دع ظهرين آد أطير عيسان مصيبة وحن لنا ندعينا جنرالك إيان الله إنتي هلكا عندك حق درن إيه كدشه وحن كلا إذا قعد سنيا هو يدي حاو آذن محمد أو صدح ويكار كل متي استيرف من الصورة يقصد دعية ولا عليها إنه إلهي جنة الفردوس إذا نجيه النبي عليه الصلاة والسلام وحصان مري معلم ناك هويني المير كدم وكدنتي أو دول كجراء عيسى وحو ربي نوانيو وحي كتير إجتك موجود وحي يقول أنا جاي يقول عيه ويسكجت النبي عليه الصلاة والسلام مركوي عبار وكسي مغنى عيدتك كويرة هذه القفك كلها اللي وحوها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويكذب تكتي وحي تري ما نوجين نعتهاي النبي قفك لها اللي مركا هو واني وحو كويري الصبر عند صدمة الأولى صبركو ومصيبة مركا كوكو عضو ويكتاج انتهاي إنها تكون سبرتيت العين يدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا
ishu waa ilmeynaysaa qalbigu wuu murugoonayaa wuxuu ilaahay uunan raalli ka ahayna ma oranayno waan ku sabraynaa haddaan tacsidii intaa kaga gudbo halkan maanta waxaa fadhiya marka nafsadayda ka reebo oon tacsida aan u dirayo adeer jenaraal maxamed nuur galaal wakiilka jabhadda ONLF ee North America oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya ONLF oo aan anigu ka ahay member waxaa fadhiya Gandhi oo isagana iga dambeyn doona waxaan tacsi ka wadnaa anigoo matalayna ururka ONLF inaan tacsi u dirno jenaraal maxamed nuur galaal baaqala waxaan u dirayaa dowladda federaalka ah iyo dadka ka mas'uulka ah waxaan leenahay dowladda federaalka probably saacada ka dhiman waqtiga ay wadanka xukumi lahayd laakiin haddii sii joogto ama tii kale la doortaba haddii sii joogto waxaan leenahay in alle intii ka dambeysay inay dadka xasuuqaan oo ugu dambeeyay jenaraal maxamed nuur galaal waa la idinku haystaa markaad xukunka ka degtaana la idinma iloobin dad dhalinyar ah oo aqoon-yahana oo diaspora joogo ayaa tagi doona haddana gudbiyay dacwado ICJ International Court Justice ugu dambeyn waxaan halkan ka dhaleecaynayaa madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor waxaan leeyahay even though annagu aanan ku dooran waa naloo kaa keenay madaxweynaheennii baa tahay marka waa inaad kala dhex gashaa dadka adigu aad matashid waxaa aad ii dhibay Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor inuu ka soo muuqday shaashadaha isagoo qosliya oo suud xiran iyadoo dadkii uu ka dhashayna ay isku leynayaan less than 40 kilometers dhimanayaan inuunan baaq dirin inuunan hal eray oran inuunan ka damqan inuu not only inuu u tagi waayo jenaraal maxamed nuur galaal oo 60 kilometers u jira iska daa jenaraal maxamed nuur galaal wuu dhintay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan u malaynayaa inay tiradu ahayd 50 qof oo islaam qofkii ku tukato janaasadiisa oo ay tiraahdo waa ahlu khayr inuu qofka jannada galayo marka jenaraal galaal uma baahnayn in madax Soomaaliyeed u tagaan oo iyagu secular ah oo haday doonaan diinta islaamka waxba aan ka garanayn laamatullaahi wa barakaatuh dadkii quruxda badnaa oo naga dhintay oo kala horeeyay oo xanuunkooda aan aad iyo aad u dareemayno oo u horeeyo gudoomiye Yirisow oo ku xigo qoojo dagaari intii la dhimatay today kuwa dhintay iyo jenaraal maxamed nuur galaal oo ahaa dadka Soomaaliyeed qof aad iyo aad ugu qaali ah qofna wada taabtay qof Soomaali oo dhan inuu taabtay aan dareemayo waxaan leeyahay dadkaas oo dhan iyo intii la dhimatay iyo kuwa maanta dhintay ay u horeeyeen ay u dambeeyeen kuwa saaka la soo duugay oo maaragtay cadawgu gacantooda ku dhintay waxaan leeyahay dhammaan inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun ilaahay ha u naxariisto dhammaan qaraabada iyo ehelkana samri iyo iimaan Allah ka siiyo aad iyo aad ayaan uga xunnahay dhammaanteen jenaraal maxamed nuur galaal oo ahaa qof qaali ah dawladda Soomaaliyana ka soo qaatay qayb libaax waxaan dareemaynaa munaasabkii oo lahaa iyo masabkii oo lahaa inaan la marsiinin waxaan dareemaynaa inayna dawladda Soomaaliya qof kasta oo madaxweynaha oo soo mara inuu dhiman doono waxa xaq uu leeyahay iyo munaasabka uu leeyahana in la marsiiyo ayaan jecelnahay marka waxaan dareemaynaa inaan la marsiinin waxaan dareemaynaa dawlad goboleedka galmudug oo u horeeyo gudoomiye Qoorqoor anigu dawlad goboleedyada gudoomiyaal baan u aqaanaay inayna marsiin waajibkoodii iyo wixii uu lahaa laakiin qabriga ayuu tagi lahaa wuuna tagay waana u duceynaynaa tixyaro baraanburahan rabaa inaan ku tuurto maanta maahan maalin baraanbur waan ogahay laakiin waxaa naga keenaysa qiiro iyo xanuun aan dareemayno marka waxaan kula qaybsanaynaa bulshada bismillah sida tan ayuu leeyahay
adduunyadu galaan galweeyo galboo xamale adduunyadu galaan galweeyo galboo xamale marbay gaajiyo haraad oo la golon gashaa marbaad gaajiyo haraad oo la golon gashaa marbaad sagal xareeda gacmahagooga cabtaa marbaad sagal xareeda gacmahagooga cabtaa gayiga Soomaaliyeed guulaloo ka yeel gayiga Soomaaliyeed guulaloo ka yeel qabiiluna dahashado wuuna kala qaxiyay qabiiluna dahashado wuuna kala qaxiyay qurbaha barafka leeyay soo qariibayaan qurbaha barafka leeyay ku qariibayin allahayow qaadiro dowlad qaranase allahayow qaadiro dowlad qaranase warwaan hadlayahayo hada halkaygu wahamehe oo waad hurdayahaye haweeyo hurdada ka kaca warwaad hurdayahaye haweeyo hurdada ka kaca halyeeyadeeba hala dilaayo hortee la dhigay halyeeyadiiba hala dilaayo hortee la dhigay muqdisho hadal bay rabtaa hormar iyo waxqabad muqdisho hormar bay rabtaa hadal iyo waxqabad nabadda oo laga hadlaa helayeeyo tahay nabadda oo laga hadlaa helayeeyo tahay maxaa sayidin helay maxaa loogu hogan yahay maxaa sayidin helay maxaa loogu hogan yahay maxaa sahilibka haygiyo xamaroo agraday maxaa sahilibka haygiyo xamaroo agraday السلام عليكم إنا لله وإنا إليه راجعون halkan waxaan tacsi uga dirayaa General Maxamed Nuur Galaal dhammaan ehelkiisii caruurtiisii iyo qaraabadii oo ka dhintay General Galaal ma ahayn nin qabiil ee wuxuu ahaa nin qaran wuxuu ahaa arkiifyadii Soomaaliya wuxuu ahaa General haayay arkiifyada Soomaaliya waxa loo dilay واسي وهي كرتا أركيبيا دي يمسكح دي الصومالية جنرالك وحكلا عمر ديمان جنرالك واحد دلي دولة الصومالية وصح تاس الشباب يلا دبن وح بدن بالا دبي الشباب مدلين جنرال جلال دولة داسان وهاي سنة الدونك إيو أنت شرعك تقان أنت مسلم وحن كربنا عدالة إنه هلو جنرال جلال وحن كلو كدريا دتك ولا عليه إسلام عي إنه يستدعيان واللي بقبلها الرجال مدو وحن كعد سنة إنه يفرجان وحبا مقبنا يعني أي جاب قريها إسكولين عي وقضايا إنه مرض الساي حرتان ويلا شكل عريان أي جا الساي دي قاضي أي ذا ويل كيد كل مناي أي ذا نكيد كل مناي إنه أوكعان أي حنم بورتكان أي كل عريان عيالك إسلام عي waxaan kaloo ku dari lahaa walaalayaalow intii galabta ka soo qayb gashay oo murugada nala qaybsatay General Daawud aniga General Daawud aan ku waashay General Galaal waa laba general asaga naftiisa waa la sumeeyay General Daawud waa la sumeeyay waa la dilay dawladda dishay marka anaga weligeed saasaan nala soo dilaayay General Gabayra la dilay Galaala la dilay Daawud la dilay hadda ka yar oo dawaa la leeyahay u baqa macsuudaan u baqa 13 maanta la dilay waa dawladda dishay al-shabaab ma jooga ereyadan waxa meesha jooga wax dilaaya waa dawladda daday geysatay meelaha beeyaa la isku sheegay dawladuna hadda ma jirtee aniga iyo madaxweynaha qaranka saacadan Soomaaliya waqtigeeda isku halaanahay qof og male inaan madaxweyne noqon doono hadda madaxweyne noqdana xaq General Galaal waan raadi doonaa insha Allah
sounds. Don't touch my